iyadoo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya iyo odayaasha dhaqanka iyo maamulada degmooyinka Matabaan iyo Maxaas ee gobolka Hiiraan ay ku guuleysteen inay kala qaadaan maleeshiya beelad ku dagaalamay deegaanada hoos yimaada degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyti Cismaan wuxuu bogaadiyay dadaaladaasi la wado isla markaana beelaha Soomaaliyeed ee walaalaha ah ee dariska isla markaana xoolo dhaqatada ah loo kala dhaxdhigi lahaa maslaxad buuxda si markaasi ay u heshiiyaan waxyaabaha dhaxmaray inaan maanta ka hadlo ama aan baaq u diro dadka walaalaha ah ee maalin walba colaadoodu soo laalaabatay haddii hadda wax kasta ay markay dhacaan waxaa la yidhaahdaa maxaa sababi kara in barbalankaasi dhaco fasiraad badan haddii laga bixiyana aad is leedahay macno kuma fadhiyo ilaa hadda aan gara la'ahay sababta dagaalkaas soo celcelinaysa waxaan leeyahay oo aan baaq nabadeed u dirayaa dadka walaalaha ah oo meesha ku diriraya colaadaas maalin walbana soo laalaabatay in laga gaaro xal waara ayaa baaqigu ku salaysan yahay arrinta colaadda meeshaa ka soo laabatay oo aan mar ahayno laba ahayno saddex ahayn oo in wiil ku dhinto maahe wax faa'iidaahoo laga gurayaana aysan jirin aan rabaa inaan idhaahdo waa in la joojiyo colaaddaas waa in la joojiyo dhinac kasta marka laga istaago wax faa'iidaho ka soo baxayahay ma jiraan waxaan leeyahay dadka walaalaha ah oo wiil iyo abtigiya oo dariska ah oo wada dhashay oo ilaa adduunka la uumay meeshaas ilaahay ku wada abuuray waa in si nabad ah oo caqligu ogol yahay oo yacni caqliga u saaxiiba inay ku wada noolaadaan nabad lagu soo dabaalo odayaasha dhaqanka maamulka degmada Maxaaseed kan degmada Matabaan ciidamada militariga ee Soomaaliya iyo kuwa nabad sugidda ka qayb qaadanaya nabadgelyadana waxaan leenahay nabadda suga gudoomiyaha gobolka Hiiraan ayaa sidoo kale ku amaanay ciidamada qalabka sida doorkooda ku aadan in ay maleeshiyaadka kala qaadaan isla markaana aysan dhicin in mar kale dhiig u daato ciidamada militariga ee Soomaaliya iyo kuwa nabad sugidda ka qayb qaadanaya nabadgelyadana waxaan leenahay nabadda suga ku dhiirada inaad dadka nabad ku soo dabaashaan cid kasta oo maslaxadaas arrintaas maslaxa ku soo dabaalaysana waa u mahad celinaynaa cid kasta oo ama maamuladaas ah ama odayaal ah ama ciidamada militariga iyo kuwa ciidamada qalabka sida ah qaybtay doonto ha ahaatee waa u mahad celinaynaa waxaanan leenahay ku dhiirada inaad dhiig bini aadan oo daadanaya aad baajisaan gudoomiyaha gobolka ayaa ka codsaday maamulka gobolka Galgaduud in ay u istaagaan sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen sidii beelaha Soomaaliyeed ee aad wadaagta loo dhaxdhigi lahaa maslaxad buuxda isla markaana ay nabad ugu wada noolaan lahaayeen. Cabdi Shukuur Ismaan Ali SNTV Beledweyne.